إسرائيل أي سوماليلاند أقونصتي إنه يهي هاليس وين وأيسن إسرائيل مركزي أيسن كفيرسن marka halistaas maxay tahay xariboodka ku qoran iyo waliba waxyaalaha aynu ka fahmi karno aynu qaybta hore ee muuqaalka ku dul istaagi doonaa waxaan sidoo kale aan doonayaa in muuqaalka qaybtiisa dambe aynu bal ku fiirino hanjabaad weyn oo ka timaaday dhanka kooxda Xuutiyiinta oo markaasi ay kaga jawaabayso aqoonsiga la yiri waxa la siiyay Somaliland iyo waliba inay saldhigyo ciidan Israa'iil ka sameystay dhankaasi Somaliland ayagana maxay sheegeen maxaa laga fili karayaa iyo waliba qataraha ku gadaaman mashruucan lagu sheegay inuu aqoonsiga yahay ayaynu muuqaalka bal ku dul istaagi doonaa marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan isolba muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba 29 December 2025 waan markii ugu horeysay oo maanta hawada ku kulmayno wakaalada Jerusalem Post oo kamid ah kuwa ugu afka dhaadheer markaynu ka hadlayno warbaahinta dhanka Israa'iil ayaa waxay daabacday maqaal xasaasi ah oo markaasi banaanka keenaya waxyaalo badan oo ay iska indhatireen nidaamka uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu waxa maqaalka looga dhigay ciwaan in Israa'iil ay markaasi ku dhacday qalad weyn oo istiraatiijiyadeed talaabada Israa'iil ay qaadayna ay tahay talaabo sii hurinaysa xiisad cusub oo gobolka ka dhacda marka waxay sheegayaan in talaabadaas ay tahay mid xiisad iyo colaad weyn gobolka ka dhalinaysa wuxuuna maqaalkan uu ka hadlay qodobo runtii xasaasi ah oo aan la iska indhatiri karin wuxuu sheegay maqaalkanu in Israa'iil ay tahay dalkii ugu horeeyay oo Somaliland u aqoonsada dal madax banaan dhanka Somaliland markii laga fiiriyo aqoonsigan ayaa wuxuu riboodku sheegayaa in Somaliland ay ku jirtay xaalad quus ah oo ay aad ugu baahnayd in la aqoonsado marka wuxuu leeyahay Somaliland lama yaabayo inay aqbasho ama ay qaadato dalabaadka ka imaanaya dhanka Israa'iil laakiin dhanka Israa'iil ayuu wuxuu riboodku uu sheegayaa inaan la fahmi karinin sababta ay Israa'iil ugu degdegtay talaabadan wax walba ama guul walba oo ay ka gaari karto go'aankana ay ka weyn tahay qatarta ay Israa'iil markaas iska indhatirtay marka wax walba oo guul ah oo dhinaca Somaliland Israa'iil ka soo gal laha waxa ka weyn qatarta ku gadaaman inay halkaas saldhig ciidan ka sameystaan dagaalna Israa'iil ay ka bilaabaan ayuu riboodku u leeyahay haddaba qataraha ay Israa'iil iska indhatirtay oo riboodku uu ka hadlayo maxay yihiin waa maxay ildoofka xogtan ay markaasi ay sheegayso iyo waliba nidaamka uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu ayaa waxa lagu eedeynayaa inaysan xataa sawir dhab ah aysan ka haysan Somaliland la sheegayo iyo xaaladaha dhabta ah ee markaasi ka jira kadibna wuxuu riboodku uu falanqeynayaa xaaladaha tirada badan oo markaasi ay iska indhatireen nidaamka uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu oo xilligaani gudaha Israa'iil kala kulmay culays mucaaradid ah oo aad iyo aad markaasi awood badan waxyaalaha ugu horeeya oo riboodkan ka hadlaya ayaa waxa kamid ah in eedeymo waaweyn loo jeediyay sirdoonka dibadda ee Israa'iil ee magaciisa loo yaqaan Mossad wuxuuna maqaalku uu durayaa fahamka ay sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay ka haystaan geeska Afrika isla markaana wuxuu banaanka uu keenayaa dhowr ilduuf oo ay horay u sameeyeen sirdoonkaasi Mossad ilduufka ugu horeeya oo lagu eedeynayo sirdoonka Mossad markaynu ka hadlayno article-kan ayaa wuxuu yahay in Mossad ay markaasi ku fashilmatay inay saadaaliso iyo inay ogaato qatarta dhabta ah ama awoodda saxda ah oo ay leeyihiin kooxda Xuutiyiinta iyo waliba waxyaalaha mashaakilaadka ah ee ka soo socday dhankaasi Suudaan marka riboodku wuxuu leeyahay horay ay Mossad ugu fashilmeen arrimo ay ka mid yihiin inay fahmaan qatarta dhabta ah ee ka imaan karta kooxda Xuutiyiinta iyo xaaladaha ka soo socday dhankaasi Suudaan marka tilaabadanna waa tilaabo kale oo fashil ah oo horseedi karta dhibaato ku dhacda Israa'iil ayuu leeyahay riboodku sababta ugu weyn oo ay sirdoonka Mossad ilduufyada iyo qalaadka noocaas ay u sameynayaan riboodku ku sheegay inay tahay inay isla weyn yihiin oo ay wax walba ayagu inay ka caqli badan yihiin ay isku qabaan iyo waliba aqoonta yar ay u leeyihiin xaaladaha ka jira geeska Afrika marka meeshan Somaliland la leeyahay ee leedin waan aqoonsanay aqoon oo ma leeyihiin ay warbaahintaanu leedahay markii la fiiriyo riboodka ay daabacday wuxuu riboodku u leeyahay in kastoo Somaliland ay muddo dheer isku soo bandhigaysay ay isugu yeeraysay inay tahay meel ka baxsan geeska Afrika ama meel ka duwanba geeska Afrika oo xasiloon oo dimuqraadi ah oo waliba madax banaana hawlahooda soddonkii sano ee la soo dhaafay laakiin xaqiiqada jirta ayaa ahmay runtii arintaasi aad uga adag
soddonkii sano ee la soo dhaafay Somaliland waxay caalamku isku tusaysay inay tahay meel xasiloon meel hawlaheeda mataqaanaa u gaar yihiin aan Soomaaliya hoos taginin meel dimuqraadi ah laakiin waxyaalaha ay isku soo bandhigayaan iyo xaqiiqada jirta ayaa aad markaasi u kala duwan ayuu reportku u leeyahay kadibna wuxuu ka hadlayaa waaqica dhabta ah ee ka jira gudaha Somaliland wuxuu leeyahay Somaliland waxa ka jira wax la yiraahdo clan identity in qofka qabiilkiisa la ogaada ama la aqoonsada ayaa waxay go'aan ka gaaraysaa baa la leeyahay arrimihiisa siyaasadda lahaanshaha dhulka inuu leeyahay iyo in kale ama inuu marti ku yahay iyo waliba matalaadiisa markaysan marka meesha waxa ka jira waa clan identity qofku inuu muwaadin yahay inuusan muwaadin ahayn markii Somaliland laga hadlayo waxa kala goynaya qabiilkiisa la leeyahay markaysan laakiin wax kale oo dadka kala saaraya meesha ma jiro qofku inuu xil raadin karo inuusan xil raadin karin waxay ku xiran tahay reerka asagu markaasi uu yahay marka waa meesha ay u aragtay Israa'iil inay dimuqraadiyad iyo kala dambeyn iyo dawladnimo ay markaa ka jirto weeye xogta uu leeyahay isla reportkani wuxuu reportku u leeyahay qabiilka Isaaqa la yiraahdo ee caloosha maamulka Somaliland deegaanka dhulkaasi u degan yahay ayaa wuxuu u badan yahay ama ay degan yihiinba Hargeysa iyo Berbera iyo Burco ay ka degan yihiin ayaa la leeyahay waana dadka ay Israa'iil dowlad ahaanta ay markaasi u aqoonsatay laakiin darafyada qabiilada degan nidaamka iyo aqoonsiga iyo waxa Israa'iil ka shaqeynaysa ma doonayaan ayuu reportku u leeyahay Sool iyo Sanaag waxa degan reer la yiraahdo dhulbahante iyo waliba qabiilo kale oo ka tirsan baa la leeyahay beesha daarood ayaa maamula oo gacanta ku haya reerahaasna waxay daacad u yihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya 14 Abriil 2025 ayayna dawladda dhexe ee Soomaaliya SSC qaatumo u aqoonsatay inay yihiin maamulkii lixaad ee ay yeelato dawladda federaaliga ee Soomaaliya maamulkaas SSC-na dhulka uu ku fadhiyo marka laga hadlayo dhulka Somaliland loo yaqaano waa 45% marka waxa soo haraysa 55% marka dhulkii Somaliland la oran jiray Ingiriisku uu gumaysan jiray isla markaasna maamulka Hargeysa ka dhisan ay aqoonsiga ku raadinayaan 45% kamid ah reero ayaa goostay oo maamul ku noqday kadibna waxay ka tirsan yihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya marka 55 ayaa soo hartay kadibna 55taasi ay hoos ugu dagayaan oo ay ka hadlayaan xaaladda dhabta ah ee markaas ka jirta wuxuu reportku leeyahay dhanka shishe ee Awdal iyo Boorama waxay ku xiran yihiin baa leeyahay Djibouti oo saameyn xoog leh ku leh sida daraadeedna way diidan yihiin nidaamka Hargeysa ka jira marka nidaamka Hargeysa ka jira ee Israa'iil ay u aqoonsatay inay tahay dal madax bannaan oo dimuqraadi ah oo ay kala dambeyn ka jirto waa nidaam dhinaciisa shishana aysan doonaynin qaybta sakona aysan doonaynin oo inta yar ee caloosha ah oo markaa ku kooban wuxuu reportkan uu sawirayaa in xaaladaha noocaay oo kala ah ay fududahay inay ka bilaabato colaado ay dawladda shisheeye ee gadaal ka riixayaan ama waxa afka Ingiriiska lagu yiraahdo proxy war tusaalayaasha uu reportkan uu soo bandhigay ayaa waxa kamid ah in SSC qaatumo ay xiriir fiican leeyihiin dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya sida daraadeedna ay back up garayn karaan aqoonsiga Somaliland la siiyana ay keeni karto colaad weyn oo ka timaada dhankaas iyo SSC qaatumo ayadoo markaas Somaliland laga urinayo inay xiriir dhow ay la leedahay Israa'iil sidoo kale dhanka shishe iyo Awdalna waxay xiriir la leeyihiin Djibouti waxay ka mid tahay dawladaha diidan ee Somaliland loo aqoonsado dawlad madax bannaan marka waxa leeyahay Djibouti iyo dawladda China waxa u fudud in ayaguna ay back up gareeyaan ama ay gadaal ka soo riixaan reer Awdal iyo waliba reerka Ciisaha la yiraahdo taasina ay dhanka shishe ka keeni karto colaad ka dhana Hargeysa iyo maamulka Israa'iil ay u aqoonsadeen inuu yahay dawlad madax bannaan waxay sidoo kale ay sheegayaan in talaabadan ay Israa'iil ugu aqoonsatay dawlad madax bannaan maamulka Somaliland inay markaas shidaalka ku shubi karto inay fursad weyn ay siinayso kooxda Al-Shabaab kadibna ay shaqaaleyn karayaan wadaniyaal iyo kooxo kale oo Islaami ah marka laga hadlayo gudaha reerka Isaaqa la yiraahdo nacaybka Israa'iil loo qabana waa habka ugu fudud oo kooxaha Islaamiga ah ay ku heli karayaan buu yiri sharciyad wuxuu sidoo kale reportkan uu ka hadlayaa saldhig ciidan oo Israa'iil ay ka samaysatay Somaliland waxa kaliya oo uu keenayo inay tahay in kooxda Xuutiyiinta loo dhawaado in loo dhawaadana aysan ahayn arrin la hubo inay guul u keenayso Israa'iil
ololihii hore loogu qaaday kooxda xuutiyiinta oo Sacuudiga iyo Mareykanka iyo Israa'iil ay qaadeen oo ay kooxdaani ay ku beegsadeen ayaa dhamaantood hore u fashilmay ayuu yiri reportka sidoo kale reportka uu sheegaya haddii in xuutiyiinta loo dhawaadaa ay guul keenayso inaysan Israa'iil u baahateen inay ciidamo lug ah ay geliso gudaha magaalada Gaza oo kooxda Hamas ay la dagaalamaan ciidamada dhulka ah marka Hamas oo daris la ah oo ku dhagan ay Israa'iil diyaarad wax uga qaadi weeday kadibna ay sameysay inay ciidamada dhulka ay geliso waa maxay marka faa'iidada ay keenayso in loo dhawaada kooxda xuutiyiinta maxayse keenaysaa dhawaansho ay leeyihiin falanqeeyaasha qoray maqaalkan ay daabacday wakaalada Jerusalem Post markaad fiirsana waa arin macna badan sameynaysa waxay soo jeedinayaan qolada qortay reportkan in Israa'iil haday u baahan tahay in xuutiyiinta ay ka adkaata waxa kaliya looga adkaan kara ay tahay ciidamada dhulka ah oo xuutiyiinta lagu la dagaalamo taasina ay tahay waxa kaliya ay guul keeni kara laakiin Soomaaliland baa la tagaya gantaala lagu tuuraya iyo diyaaradaha duqeynaya wax guul keenaya maahan haday waxa guul keeni karana Hamas baa guul laga gaari lahaa ay leeyihiin marka si guud markii aynu fiirino reportkan xogta uu daabacayo ayaa wuxuu ka warramayaa in maamulka uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu aysan aqoon dhaba u lahayn wax meeshan ka jira wax meeshan ka jirana ay tahay siyaasad ku dhisan qabiil maamulka ay aqoonsteen uu yahay maamul dhowr qaybood u kala qaybsan isla markaana dawladda aad u tiro badan ay kaabiga ku hayaan kulligoodna ay la dagaalamayaan wax walba oo Israa'iil ay dabcado inay ka fuliso gobolkan iyo deegaamadanba waxay intaasi ku darayaan in arrintaanu ay tahay talaabo qaldan oo siyaasadeed Israa'iilna u abuuraysa cadow hor leh iyo dawladda hadda aysan cadow ahayn ayagoo markaas farta ku fiiqaya Turkida ayagoo farta ku fiiqaya dawladda Masar ayagoo farta ku fiiqaya Sacuudiga iyo dawladda kale dawladahayo dhanna waxay ka hor imaadsan yihiin baa la leeyahay talaabada Israa'iil ee ku aqoonsatay Somaliland dalalka gobolka ku yaalo oo dhanna arrintan way ka soo horjeedaan dhamaantoodna way iska kaashanayaan sidii markaas looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaqa Israa'iil ee ka wado dhankaasi Somaliland ayaa la leeyahay marka reportkaasi intaas ayaynu ku dhaafaynaa qofkii doonaya uu soo akhrisan karaya dhanka kale markii aynu fiirino kooxda xuutiyiinta ayaa waxay soo saareen saacadii hadda la soo dhaafay go'aan ay kaga hadlayaan talaabada Israa'iil ee ku aqoonsatay maamulka Somaliland waxayna soo direen hanjabaad ka dhana Israa'iil hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta ama Ansarullah Abdul Malik al-Houthi ayaa wuxuu sheegay in joogitaan kasta oo Israa'iil ay Somaliland ku sugan tahay ama ay joogto in loo aqoonsan doono bartilmaameed military waa maxay bartilmaameed military bartilmaameed militarigu wuxuu noqonayaa goob ay saldhig ku leeyihiin Israa'iil kooxdaas Ansarullah ama xuutiyiintuna ay beegsan karayaan mar walba ay colaad soo laabato duqeymihii iyo weeraradii u dhaxeeyay kooxdaasi iyo Israa'iil ayaa bilooyinka hadda la soo dhaafay taagnaa kadib markii heshiiskii Gaza u dhacay marka haddii arrintaas ay dib u soo laabato Ansarullah iyo xuutiyiintu waxay sheegayaan in saldhiga ay ka sameysteen Somaliland uu yahay mid kamid ah bartilmaameedyada u calaamadaysan oo ay weerari doonaan hogaamiyaha kooxdan xuutiyiinta oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay ama uu carabka ku adkeeyay in kooxdiisu ay diyaar u tahay inay qaado tallaabo walba oo lagu taageerayo shacabka Soomaaliyeed isla markaasna aysan ogolaan dooninin in qayb Soomaaliya kamid ah ay Israa'iil ka dhigato saldhig ameel xarun ah hadalkan markii la damco in la fasiro waxaan is oran karayaa ama waxaan is leeyahay waxa lagu fasiri karayaa hadalka uu leeyahay waxaan garab taaganahay oo aan taageero diyaar u lanahay ummadda Soomaaliyeed ama Soomaalida inay tahay hadii Soomaalidu ay doonayaan in hub iyo ciidamo iyo qalab aan siino diyaar ayaan u lanahay hadii ay isdifaacayaan dhanka kalena inuu sheegayo inaysan kooxdiisu aqbalaynin in Israa'iil xarun ka samaysato Soomaaliya taasoo ayaga looga soo duulo marka hanjabaad ka timaadee dhanka kooxda xuutiyiintu waa midaan la iska indhatiri karinin waana midii maalmihii la soo dhaafay aynu halkan ku falanqeynaynay Israa'iil halka inay degto qorshaheedu maaha qorshe ay qarsanayso waa in xuutiyiinta ay ku duusho xuutiyiintuna in looga soo duulaa Somaliland iyo Soomaaliya waxay kaga jawaabayaan duqeymo iyo gantaalo iyo waliba drones isqarxinaya si lamida weeraradii ay horay ugu qaadayeen Tel Aviv iyo magaalooyinka kale ee Israa'iil marka waa xaalad adag waxa ay maamulka iyo dadkiisaba ay ku cayaarayaan Soomaalidu waa dabeecadeeda marka hore warka jooga markii la yiraahdo inay indhaha faraha ka galiyaan laakiin markii xoogaa yar la xanuujiya dadka ugu oohinta badan ee ugu qaylada badan ee Soomaaliya ay ku haya ayay noqon doonaan marka wali waxaynu halkan ka sheegaynaa
tallaabada aad qaadeen iyo inaad caruurtiina ilmihiina aad ku dhax abuurtaan dagaalkii bariga dhexe ka socday waxay noqon doontaa tallaabo inaan marnaba barayska bixin karin ilaa hadda waqti baad haysataan dib uga laabta ayaan anigu shakhsiyan oran lahaa haddii se aad diidaan wixii aad ka dhantaan cidna waxba ka siinna intaasaan muuqaalkan kusoo koobaya inta dib isaga soo laaban waxaan ka tagaysaa inoo dilo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh